marka waa kaasaan fahanteen waa kana intaasoo lasoo hadlay caadi iskula hadlaayeen jaanis yar waqtigaa makaa heli karaa yaa marka balaayada adduunka ma fahanteen yaa iyada fiidiyoana u dirtay maxaa ka wadaa camal dad badan ayaa ku dambaabay gabadhan iyagoo aaminsan in muuqaalkeeda oo qaawan ay u dirtay nin si ay ugu kala kiciso kadibna uu ka soo qarxiyay haddaba sheekadu sidaa ma aha أنا روحانا قام فانت روحان سبحان الله عند خابنا الله بحج عش إسقاب أنت مرة قارئ يقصدك بوره يكونوا شدتك جيب ساعة كده هذا يقصدك تو أكتي مسكح ذا مليا كده أنا واسك الصعدة موي روحان تسيب شقيسته daawade ma ogtahay in adigan hadda daawanaya hadii ay jirto xog ama macluumaad ku qarsoon lahaayo lagana yaabo in saacadaha soo socda baraha bulshada lagu soo fasaxo masala socotaa in shirkadda Facebook iyo Apple ay isku dagaaleen arinta kuwii canab oo kale haddaba waxaad is weydiinaysaa sidee bay arintaas suurtagal ku noqon doontaa waxa xaqiiqo ah hadii aad haysato telefoon gacanta ah isla markaana aad isticmaasho social media ay halis ku jirto dhammaan xogaha adiga ku qarsoon haddaba intaan arintaas oo dhan ka daba geenin fadlan page-kiga shacasheekay follow muuqaalkan like la dhac sidoo kale si share garay si uu gaar saaxiibo badan oo arintan ka digtoonaada Soomaalidu waxay tiraahdaa laba dibi meesha ay ku dagaalaan caws ayaa ku dhamaada adduunyada oo dhan ayaa hadal haysa dagaalka adag ee ka dhex qarxay shirkadda Apple iyo sidoo kale Facebook dagaalkaasi oo ku saabsan in Facebook ay keedin weysay xogta qarsoon ee dadka isticmaala shirkadda Apple iyo shirkadaha kale ee telefoonada gacanta lagu isticmaalo sheekadan oo dunida dhan ay la yaaban tahay ayaa hadda waxay u muuqataa in Soomaalida qaar ay soo gaartay waxa dacwad aad u ballaaran isku haysta shirkadda telefoonada soo saartay ee Soomaalidu aad ku jecel yihiin Apple iyo shirkadda Facebook ayaa lagu eedeynayaa inay keedin weysay xogta isticmaalayaal badan oo shirkadda Apple ka tirsan arintani oo aad u daba dheeraatay dacwadeeda ayaa maalmihii u dambeeyay waxa si weyn isku haystay labadan shirkadood hase yeeshee shirkadda Google ayaa ku garabsiisay Facebook si aysan Apple ilaalin gooniya u siin isticmaalayaasheeda waxa laga yaabaa wali inaad sheekadan fahmin si aan kugu jilciyo adigu ma ka mid tahay dadka isticmaala Apple phones oo ma wadataa telefoon iPhone ah nooc doonaba ha ahaado 11 Pro Max 12 Pro Max 13 Pro Max iyo sidoo kale X Max 8 iyo telefoonada lacaynka ma isticmaashaa haddaba qatar aad u weyn ayaad ku jirtaa hadii aad isticmaalkooda ku darsatay Facebook si aad haddaba arintan wax badan uga ogaato Apple waxay Facebook u haysataa in dadkeeda isticmaala ama isticmaalayaasheeda ay shirkadda Facebook macluumaadkeeda ama xogteeda qolooyin kale ay la wadaagtay ama si fudud ay dadka isticmaalaya Apple ku waayeen adigana ayaa isweydiinaya sidee anigoo isticmaala telefoon Apple ah aan ku weyn karaa xog ama data iyo qarsooneed dadka qaar ayaa dooqoodu wuxuu yahay in mararka qaar marka ay qubaysanayaan ama ay si kale ama musqusha isticmaalayaan inay telefoonadooda la galaan oo telefoonadooda ku dhex isticmaalaan waxa laga yaabaa xillidaas oo kale inay xitaa muuqaalo iska duubaan amaba iyagoo aan musqul ku jirin ee banaanka jooga gurigooda jooga inay muuqaalo bareefad ayagoo iska duubaan waxa laga yaabaa qaar familia in muuqaalo ama sawiro bareefad ah oo xasuusaan ayagu rabaan inay isticmaalaan inay telefoonadooda gacanta ku qaadaan kadibna ay aaminaan inay telefoonadooda ku kaydsadaan arintaasi waa xog ku qarsoon ama qofka privacy u qarsoon haddaba wili maskaxdaada ma ku soo dhacday in aad suuqa ka doonato ama alaab aadan markaas is leedahay meel aad ku ogeyn kadibna inta aadan alaabtii doonan Facebook ama meel kale website inta gashay alaabtii aad rabtay noocyadooda laga horkeeno haddaba waxa is weydiisaa sidee Facebook ku ogaatay alaabtan adiga u baahan tahay ajiib arintaasi haddaba waxa ay fududeysay in xogaha qarsoon ee isticmaalka telefoonka ku jira in shirkadaha qaar sida Facebook oo kale ay ka warhayso lagana yaabo in siday doonto u adeegsato iyadoo oo ka faa'iideysanaysa ama ku jabinaysa dagaalada adag ee shirkadaha kala dhaxay haddaba hadii aad arintaasi hadda wax badan ka fahantay waxaan ka codsanayaa in hadii aad aragto qof walaalka ah muuqaalkiisa ama xogtiisa lagu soo wadaagay aadan dad kale la sii wadaagin aan ha ahaado ama yuusa ahaan waxaan ka codsanayaa inaad sidoo kale ka digtoonaato in aad gebi ahaanba xog adiga ku qaas ah oo aadan public dhigi karin aad telefoonka ku kaydsato si aadan bari umurgon